بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون وحيكون مقعابنتها إذا جاءك المنافقون، وسورة دي سدحية اللحدنات. سورة المنافقون وسورة مدنية وآيات 11 آية يدنا كوية 8 آية. سبب النزول بي سورة دان لاي غزوة بني المصطلق أيها الله قالي marka غزوة bani المصطلق la galay ayaa waxaa murmay nin u adeegayay Sayd Cumar iyo nin u adeegayay Cabdullah ibn Ubay ibn Salul mal'uunki akbarul munaafiqiin ayaa xoogaa isku riixay ceel biyo laga qaadanayay biyihii markii la isku riixay yarkii Sayd Cumar shaatir buu ahaa laad buu kii dabada kaga dhuftay. markuu laad dabada kaga dhuftay yaa waxaa dhawaaqay yaa lal ansaar wa yaa lal muhaajiriin. Cabdullah ibn Ubay baa warkii ku soo baxay saana dhacdaa la yiri wallahi ma mathaluna wa Muhammad illa kama qila samin kalbaka yaakuluka. war wixii shalay noo yimideen waxban ahayn miyaa markaan maanta soo dhaweynay xaruntii naga laaday oo annagii noo toliya gacan sheeganay. wax hadalla badan oo suuradda lagu xusay ayaa uu sheegay. wuxuu yiri la rajacna ila al-Madina la yukhrijana al-'azm min al-adl. magaaladii Madiina intaanu dib ugu noqoynaa warba ka dhiman waxaan dulliga magaalada waa ka saareen. adeella nabigu ku wadaa iyo ragiisa, azna wuxuu ku wadaa isaga iyo qoladii ansaareey Madiina ku wadaa. qowl labaadna wuxuu yiri intuu wixii ansaaraha kulmiyay buu yiri la tunfiqu ala man inda rasuulillah hatta yanfadu. adinka inkaar qabo waxaan lagu jilay laba habeen hadii laga soo xijilkay ku dhici lahaayeen yaan nin dambe guriga iyo cunto siiya laarka hadalla caynkaasuu yiri. wiil baa maqlaayay, wiilkii maqlaayay oday adeerkii uu sheegay, odagii adeerka ana suubanuhu u sheegay. suubanaha warkii markuu gaaray waa kululaaday. Cabdullah ibn Ubay iyo raggoodii baa loo sheegay. kaalaya la yiri waa yimaadeen. war waxa maxaa u tiraadeen xiliya kitaab iyo dhaar iyo qajja. nabiga wuu rumaystay markay dhaarteen oo warkii qurxiyeen inayan warkii dhihin. dhibaatadii wiilkii warka maqlaayay ku soo noqotay. adeerkii baa wiilka canaantay war tacabkaa baay been baad ii sheegtay kuguma aqoonin anigana beentaadii baan la orday. suubanihii baan u sheegay. suubanaha waa gubtay maanta nimankaad beenta ka sheegtayna dhaarta. wiilkii wuxuu ogaa baa laga been sheegiyey. gaar buu u baxo garkii iyo gafuurka iyo isku qabtay isagoo foorarsanaya ay suuradda timid. suubanaha wiilkii u yeeray buu yiri wiilkaa loo yeeray wuxuu yiri faqad sadaqaka Allahu caza wajal. ilaah baa warkaagii rumeeyey wax beena kulama jira. qaala tacaala abdow hadii suurata bismillah alla magicii qabidii ayaan ku bilaabay. aliya araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista. qaala tacaala ilaah wuxuu yihi idaa ja'aka ayuha rasuulu lkariim hadday suubana ku yimaadaan almunaafiquun urka gaalada cabdullaahi ibni ubay iyo ardaasha la jirta hadday ku yimaadaan qaaluu waxay leeyihiin nashhadu waxaanu qiraynaa inaka adiga rasuulka la rasuulullaahi eebba miduu diray inaad tahaanu qiraynaa. wallaahu eebba weynana yaclamu waa ogyahay inaka adiga inaad la rasuuluhu axaduu diray tahay allaaba ku og annagana waa qiraynaa. hadday sidaa yidhaahdeen wallaahu eebba weyne yashhadu wuxuu qirayaa ina almunaafiqiina urka gaalada lakaadibuuna fii qawlih inay hadalkooda ku been sheegayaan oo hadalkooda ay leeyihiin waa ku rumaynay nashhadu inaka la rasuulullah afka been bay ka sheegayaan kuma rumaysna. warkan kolka waa waray isku furdaaminayaan. idan haddaynu tacriifin run iyo been maxaa la yidhahdaa? runsa maxaa la yidhahdaa? run waxaa la yidhahdaa wixii waaqica waafaqa, wixii ictiqaadka waafaqa run la yidhaah. hadduu waafaqi waayo waaqicaba ha waafaqa been wey. kolka inaka la rasuulillah carabkii waa ka yidhaahdeen laakiin been waxay ku sheegayaan yaquuluuna biafwaahihim
maa laysa fii quluubihim idan been bay sheegeen hadalkay yidhahdeen waa beentood oo kolka beentii maxaa ku jirrabaya ittakhaduu waxay yeesheen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan fasaduu owde can sabiilillah wixii waa gaale haddii la layn lahaa la edbin lahaa carruurtii haweenkana la khaniimaysan lahaa dhaartaa beenta iyo magafta ayay ku owdeen inahum iyaga saa waxaa xumaaday maa waxay kaanuu noqdeen yacmaluuna kuwa sameeya daalika sababka waxa wey biannahum uurka gaalada aamanuu carabkay alla ka rumeeyeen uma kafaruu qalbiga alla ka diideen fatubica markii dambe waxaa rabbi alxamay oo sharay calaa quluubihim laabtooda korkooda oo fahum iyaga laa yafqahuun weligood wax garan maya waidaa ra-aytum cabdullaahi nin aada u qurux badan buu ahaa adkarnaa qur-aanka cadaaladiisa arag ninkaas malcuunka ee munaafiqiinta u weynaa meeluhuu ka lahaa qiimi ilaah waa sheegay ilaah wuxuu yidhi waidaa ra-aytahum haddaad munaafiqiinta aragtid tucjibuka waxaa ku yaabgelin ajsaamuhum badankooda nin qurux badan oo cad oo laf weyn oo dheer oo hilib buuxuu ahaa wain yaquulu hadday hadlayaanna ma dhaafi kartid hadal macaanka war qurxinta tasmac waad dhag raaricin liqawlihim hadalkooda darti kaanahum waxaad moodaa khushubun qoryo musanadatun la tiirtiiriyey yaxsabuuna waxay malaynayaan kula sayxa mashaaricu lmuslimiin baa socotay jihaad iyo wax lamida haddii la isugu yeelayo war soo baxa hadday maqlaan balaa dhacday innagaa fardahana lagu kicinayo sawcayriin cuna calooshiisu ka tuhun qabaa ma aha gaalo inay yihiin bay is og yihiin kolkaas shanqartii yeertaba annagaa nalaqa qabanaya yaxsabuuna waxay maleeyaan kula sayxa qayla kulligeed calayhim korkooda in la isugu qayliyey ilaah wuxuu yidhi hum uurka gaalada alcaduwu colwey ee faxdarhum suubana iska jir qaatalahumullah kadib baaba ilaah inkaaroo yidhi qaatalahumullah nag allaha ka dhige annaa sideeba yuufakuuna xaqii looga ilay rasuulkii bay arkayaan waxyigii baa degaya dibad iyo daakhil baa laga imanaya dadkii baa islaamaya war waxaan xaggee lagayaa bale ku dhacday qaatalahumullah eber allaha ka dhigo annaa sideeba yuufakuuna xaqii looga ilay aayaddii markay soo degtay xaqiiqadii iyo runtiina la ogaaday ayaa cabdullaahi ibnu ubay qaraabadiisii u tagtay waxaa la yidhi war bale kugu dhacday awalna ma aadan fiicnayn haddaana haddaad isku daafacday been iyo carab dhirir ilaah baa hadloo xaqiiqadii la ogaa waxaan waa tiri kaalay rasuulka u tag dembi dhaafa ku dalbe xaggaasuu madaxa u jeediyey xanaaq dirti wuxuu yidhi ninkaan hala rumeeyaa tirahdeen waa rumaynay hala tukadaa tirahdeen waa tukanay saka bixiya waa bixinay jihaadkii waa raacnay haddaad anigii leedihiin kaalay u sujuud lugaha qabso war idinka yeeli maayay dhaaf qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa qiila haddii loo yihaa lahum urka gaalada tacaalow kaalaya yastakfir ha idin dembi dhaaf dalbo lakum idinka rasuulullah ilaah rasuulkiisii dembi dhaafa idin dalbee kaalaya haddii la yihaa lawow waxay jeedinayaan ru'uusahum madaxyaalkay qofkii la hadlaayey hadalkan ciday u qabaan in wejiga dad baayaano xaggaanay madaxii aadinayeen lawow waxay jeedinayaan ru'uusahum madaxyaalkooda wa ra-aytahum waad aragtaa munaafiqiinta inay yasuduuna jeedsanayaan oo inay nabiga u yimaadaan oo ilaah dembi dhaafid loo weydiiyo ma ogola maxay u diideen wahum mustakbiruun suubanayba iskala wen yihiin diintay alla iskala wen yihiin wahum mustakbiruun markay sidaa yihiin ay xaqi iyo rasuulkii iska weynaysiiyeen dembi dhaaf waa laga xiray wasadaqa allahu fii qawlihi sawaaun waxaa eg calayhim korkooda astakfarta haddaad u dembi dhaafto suubane lahum munaafiqiinta am lam tastakfir haddaadan u dembi dhaaf dalbin lahum iyaga laba goorabaa lan yakfir allah xarfu istiqbaal weeye lanta amaa loo dhaafaa lamala wey maxaa jira in allaha eebe laa yahdii ma hanuuniyo alqawma dad alfaasiqiina diinta ka baxay hadalladoodii marka dhegaysa ay ku hadleen intoodii cuslayd baa lasoo qaaday kow hum munaafiqiinta sow aladiina wixii ma aha yaquuluuna yidhi cabdullaahi binu ubey baa ku yidhi ansaarinteedii kale laa tunfiquu ha cunto siinina calaa man dad korkood cinda rasuulillah ilaa rasuulkiisa agta dadkaa tuban cunto ha siinina oo maxaa loo siin waayey xataa yanfaduu ha kala tageene
dabbaan wuxuusan ogeyn cuntada meelay ka timaad inay biyadillaahi wuxuu ku xisaabtamaya muufa gacantiisa ku jirta wey roobka cirka ka imaana iyo cuntada dhulka ka imaanaysa jihaadkaan intii la qaada beriba dad iyo dal dunyo la qabsana yaa wixiisa raba walilaahi eebbaweynaale leh khasaa-inu samaawaat ciraryaal istoorada iyo bangiyaal ku yaal iyo walardi dhoolyaalka walaakina almunaafiqiina uurka gaalada laa yafqahuun waxba garan maayo mar labaad yaquuluuna waxay yidhaahdeen waa dhaaranayaan cabdullaahi wey lain rajacna haddaanu laabano ila almadiina intaanu ka laabano khaswadan almadiina ku noqono layukhrijana wuxuu bixin doonaa alacaz sharaflaha cabdullaahi raggiisa minhaa madiina wuxuu ka bixinayaa aladilla kuwaan koytoyda nabiga iyo raggiisii baalada laku wada kolkaasaa rabbi yidhi dabaal wax ma oga cizi maxaa munaafiq ugadana walilaahi eebbaweynaale leh alcizatu halabo adkaan iyo guul iyo gobannimo ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniin baa leh ee waxbuusan ogeyn walilaahi eebbaweyna alcizatu sharaf idaylkeed leh walirasuulihi suubanaha leh walilmu'miniin inta rumaysaa leh walaakina almunaafiqiina uurka gaalada laa yaclamuuna runtaan ma oga sidaa marka arrintii loo qaadaa dhigayna tawjiih gabanaa mu'miniinta lagu dhuftay oo la yihi munaafiqiin ha lamid noqonina yaan ahalkiina iyo awlaadiina cibaadadii daraaddeed la idiin uumay idinka shuqlini ee danihiinana guta diintiinana fushada qaala tacaala ilaah wuxuu ya ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tulhikum yayan idin shuqlin amwaalukum xoolayaalkiina walaa awlaadukum caruurtiina can dikrillah eebbaweyne xusidii in idinka shuqlinin ee waman ruuxa yafcal sidaa sameeya xujo ka dhigta carruurtii iyo ilmihii iyo xoolihii aan ka bixi waayey sidaa salaadii iyo cibaadadii iyo taacadii iyo dikriga eebe ay ku dhaafaan waman ruuxa yafcal sameeya daalika arrinka fa ulaa'ika kuwa sidaa sameeyey hum iyaga alkhaasiruun kuwa tacabkood baayu ee wa anfiqu mu'miniin bixiya mimaa wax ka bixiya rasaqnaakum anu haddaan eebbanahay idin siinay fursada gabanka intay nafta kugu jirto min qabli an yaatiya intuusan u iman axadakum qofkiin almawtu geeri oo fa yaquula uusan oran rabbi yaa rabbi nacnacawey lowlaa akhartanii geeridii markay timid ilaahu maa dib ii dhigtid ilaa ajalin madal yar maalmo maa ii kaadisid qariibin dhow haddii lagu kaadiyo maxaad qaban fa sadaqa hantidan hayo dhan baan sadaqaysan lahaa wa akun waxaan ahaan lahaa min asaalixiina dadka xajiyow cabdullaahi ibnu cabbaas baa yidhi sakada iyo xajka qofka bixin waayo weeye qofka sidan odhanaya kolkaa waxaa timid kolkay ajal dhamaato inaan celini jirin walan yu-akhir allaahu ilaah dib uma dhigo nafsa naf idaa jaa hadduu yimaado ajaluhaa madalkii loo qabtay naftu waa baxsanaysaa ee loo kaadin maayo wallaahu eebbaweyne khabiirun xogogaal buu wuxuu yahay bimaa waxalla waxaad tacmaluuna xun iyo sanba samaynaysaan walan yu-akhir allaahu bacdu lmufasiriin istinbaad qiimi badan bay ku sameeyeen waxay yidhaahdeen naf waktigeedii gaartay inaan dib loo dhigayn halkaan waa caddays walan yu-akhir allaahu nafsa tirsiga qur-aanka markaynu tirinana suuraddan waa suuraddii 63 markaa nabiga wuxuu jiray cimrigii 63 maxaa xigta suuratu taqaabun meel lagu kala kacay taqaabun meel lagu kala kacay oo la isu kadiyey masiibo ka weyneed geerida nabigana weli nooma iman inkasta oy diinta naga reebtay oo kolka marka mawluud iyo dabaaldeg aynu dhalashadiisa u samaynayno geeridiisaa ka cuslay isku wakti bayna ahayd oo maalinkuu dhintay iyo maalinkuu dhashay 12 mawluud bay ah kolka dhalashadiisii uu dhashay waxaa ka qiimi badnayd nubuwadiisi iyo risaaladiisi waa 40 sano caadigu waa 23 sano ee nubuwada timid ee risaalada timid ee waxyigu degay ee ummadda badbaaday baa qiimi badnayd kolkaa markaynu baranay oo ummaddii uu badbaadiyey ayuu geeriyooday masiibo ka weyn male kolkaasay yidhaahdeen waa laga fahmi karaa halkan geeridii rasuulka oo muddadana suuraddan 63 iyo cimrigiisii oo 63 markaa marayay ayaa munaasiba dabadeedna taqaabun iyo garbaha laysku dhuftay idaa jaa-aka ayuha rasuululkariim hadday ku yimaadaan almunaafiquuna uurka gaalada qaaluu waxay leeyihiin
nashhadu waxaan qiraynaa inaka adiga la rasuulullah ilaah miduu diray inaad tahay baabaanu qiraynaa calooshooda kuma jirto wallaahu eebbana yaclamu waa ogyahay inaka adiga rasuulka inaad la rasuuluhu axadu eebba diray tahay wallaahu eebba weyne yashhadu wuxuu qirayaa ina almunaafiqiina urka gaalada inay lakaadibuun yihiin kuwa been sheegaya ittakhaduu waxay yeesheen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan fasaduu waxay awdeen can sabiilillah ilaah waddadiisii inahum iyaga munaafiqiinta saa waxaa xumaaday maa waxa ay kaanuu ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya qawliya ficil daalika sababka waxa wey biannahum iyaga inay aamanuu carabka eebba ka rumeeyeen uma kafaruu qalbiga ay eebba ka diideen fatubica waxaa la sharay calaa quluubihim laabtooda korkeedaa la sharay oo fa hum iyaga laa yafqahuun xaq garan maayaan waidaa ra'aytahum haddaad aragtid muuqaalkooda tucjibuka waxaa ku yaabgelin ajsaamuhum badankooda quruxda wain yaquuluu hadday hadlaanna tasmac waad dheg raaricin liqawlihim hadalkooda darti fasaaxada kaanahum waxaad moodaa khushubun qoryo muraale musanadatun meel lagu tiiriyey muuqaalkan fiican iyo inaan waxba ku guda jirin yaxsabuuna waxay taawiyaan kulla sayxa shanqar yartay kulligeed calayhim korkooda in lagu fulinayo hum iyaga alcaduwu colwey faxdarhum rasuul allow iska jir qaatalahumullah ilaah lacnadii ha ku dhacdo ee annaa sideeba yu'fakuuna xaqii looga iilay waidaa qiila haddii loo yihaa lahum munaafiqiinta tacaalow kaalaya yastakfir ha dembi dhaaf dalbo lakum idinka rasuulullah ilaa rasuulkiisii ha idin dembi dhaaf dalbo labo waxay jeediyaan ru'uusahum madaxyaalkooda wa ra'aytahum waxaad aragtaa yasuduuna inay makfiradii ka jeedsanayaan wahum iyaga oo mustakbiruun iskala weyn rasuulka sawaan waxaa siman calayhim korkooda ku siman astakfarta inaad u dembi dhaaf dalabto lahum iyaga am lam tastakfir inaadan u dembi dhaaf dalbin lahum iyaga labadaa way isku mid laba gooraba lan yakfir allah ilaah ama u dhaafaa lama le lahum iyaga sababku inallaaha eebe laa yahdii ma hanuuniyo alqawma dad alfaasiqiina diinta ka baxay hum munaafiqiinta aladiina wixii wey yaquuluuna yidhi laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man dad korkood cuntaha siinina cinda rasuulillah ilaa rasuulkii agtii jooga muhaajiriin bay u dan leeyihiin xataa yanfaduu ha kala tageene walilaahi eebba weynaa leh khasaa'inu samaawaati waalardi dhulalyaalka iyo ciraryaalka khasnadahooda ay wax ku jiraan risqiga allah iska leh walaakina almunaafiqiina urka gaalada laa yafqahuun in ilaah wax walba gacanta ku haysta garan maayaan yaquuluuna waxaa kaloo yidhaahdeen law wallaahi baanu ku dhaaranay in rajacnaa haddaanu laabano ila almadiinati u laabano layukhrijanna wuxuu bixinayaa alacazu dadka sharaf kale ee reer ansaar ee madiina degan minhaa min almadiina wuxuu ka bixinayaa aladilla muhaajiriintan aan fiicnayn walilaahi eebba weyne ayaa alcizatu sharaf iyo khalabiya adkaan gobannimo iyo guul iskale walirasuulihi suubanuhu diray ayaa gobannimo iyo guulba leh walilmu'miniin inta alliya rasuul rumaysay ayaa guul iyo gobannimo leh walaakina almunaafiqiina urka gaalada laa yaclamuuna ma oga yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tulhikum yayan idin hawlin amwaalukum xoolayaalkiina walaa awlaadukum caruurtiina can dikrillah eebba weyne xusidiisa xaggeeda yayan idinka hawlin waman ruuxa yafcal sameeya daalika sida fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alkhaasiruun kuwa tacabkood ba-ay wey waanfiquu bixiya mimaa wax ka bixiya maal aan rasaqnaakum idinku dheefinay min qabli an yaatiya intuusan u iman axadakum qofkiin almawtu geeri oo uusan fa yaquula ku calaacalin odhan rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow lawlaa akhartanii idib dhigteena ilaa ajalin madal inta laga gaaro qariibin dhow maxaad ku qaban lahay intaa dibdhigaa fa sadaqa haddaan hantida bixin lahaa oon waa kun ahaan lahaa min asaalixiin dadka xajka taga ayaan ka mid noqon lahaa ilaahna ugu jawaabees yidhi walan yu-akhira allaahu eebba ma dib dhigo nafsan naf dib uma dhigo idaa jaa marka u yimaad ajaluhaa nafta madashii loo qabtiyo muddadeedii kadib dib loo dhigi maayo wallaahu eebba weyne khabiirun alla xog ogaala bimaa tacmaluun waxaad qawliya ficilba samaynaysaan
wallahu aclam.